alla caashiqu muxuu dartaa iduleeyay qaybteedii saddexaad. Suleyqa habeenkaas qalad weyn ayay gashay, nafteedana aad ayay u canaanatay iyada oo marna ooynaysa. Markii dambe ayay xaafadeeda dib ugu soo noqotay. Markii faraashkeeda tagtay ayay dhex gashay mawjadihii fikirka, waxayna soo xasuusatay sheekooyin ay hore u soo aragtay oo ku saabsan wax ay caawa la soo kulantay. Waxa kale oo qalbigeeda ku soo dhacday qisooyin la mid ah oo gabdho badan lagu qiyaameeyay, kuwaas oo ay hore u aragtay. Cabsi ayaa gashay, hadda waxay is leedahay talow sidoo xaalku noqon doonaa. Maalintii dambe ayuu soo wacay, markuu dareemay inay murugaysan tahay ayuu wuxuu niyadda ugu dejiyay, huna aniga unbaa ku guursan, nin kalena kuma ogoli, labadeena jacaylka ayaa inawaalay, waxba ha ka baqin, anaa kule adiga. Sidaa markuu yiri Suleyqa, xoogaa niyadda ayaa u degtay. Maalmo ka bacdi ayuu haddana ka dalbaday inay la kulanto, balse markan way ka cabsatay wayna diiday. Waxba ma uusan cadaadin ee haddaadan ogolayn iska joog ayuu yiri. Wax isbedel ahna ma uusan dareensiin. Markan wuxuu u muujiyay inuusan raalli ka ahayn inuu ku qasbo wax aysan iyada ogolayn. Waxa kale oo uu dareensiiyay inuusan jirkeeda ku socon. Markaas ayay Suleyqa istiri, wallahi waa nin ku jecel, mar buu qalad ka dhacay. Maalin dambe ayuu soo wacay, wuxuuna ku yiri inaan meel aado ayaan rabaa ee nabadgelyo, inaan ku arko waan jeclaa, balse haddaadan awoodin dhib ma leh oo waan iska tegay. Suleyqa waxay aragtay in ninkan uu ilaalinayo, waxayna ku tiri waan kuu imaanayaa galabta, isagana haye ayuu ugu jawaabay. Xilligii ballanta markii la garay ayay Suleyqa u tagtay. Habeenkaasna sidii caadada ahayd ayaa goobta ka dhacday, oo dharkii xilli la wada tuuray ayaa la garan waayay. Durbadiiba mawjadii raaxada ayaa la wada mushaaxay. Habeenkaas intii ka dambeysay Suleyqa way is dhiibtay, marar badanna way kulmeen, oo weliba waxay qabtay rajo guur. Muddo dhowr bilood ah ka bacdi Suleyqa waxay dareentay inay wax ka qaldan yihiin, xanuun, lalabo iyo dhiigga caadada oo joogsaday. Way dareentay inay uur qaaday, waxayna si dhaqso ah ula wadaagtay Siciidkii waraabiyay suntii caashiqa, balse wuxuu weydiiyay inuu jiray nin kale oo u tagay. Wuxuuna ku yiri aniga uurkaas kuma yeelin, waan ka ilaaliya qoyaanba. Suleyqa way cil oyday, waxayna aragtay xaqiiqadii qarsooneed. Ugu dambeyn Siciid wuxuu aad uga cabsi qabay in Suleyqa uurkeedu ay xaafadda ogaato oo isaga sheegato, ayaa isagoo taas aad uga baqayo ku yiri Suleyqa xal ayaan hayaa, oo muxuu yahay ayayna ugu jawaabtay. Iyadana qalbigeeda waxa ku soo dhacay, wuxuu ku oran doonaa hadda ayaan isguursanaynaa, balse wuxuu yiri wax aysan iyadu ka filanayn, kaasoo ahaa ilmaha ayaan ka soo xaqa. Suleyqa waxay dareentay in ninka uusan rajo ka lahayn, kuna ciyaarayay. Waxay ogaatay in Siciid uusan ogolaanaynin, haddii ay sheegatana uu dafirayo. Waxaana hortaala laba arrimood, inay mid samayso, inay hadalkiisa yeesho, ilmaana iska soo xaqdo, iyo inay diido oo ilmaheeda iska dhasho, dushana u ridato dhibaatada ka imaan doonta. Waa gabar yar oo aysan maskaxdeedu qaadi karin culayska intaas leeg, waxayna ku weerartay go'aanka ay qaadan lahayd. Ugu dambeyn ninkii ayaa ka dhaadhiciyay inay ogolaato arrinta uu u soo bandhigay, waxa uuna u sheegay inay tahay wadada kaliya ay ku badbaadi karaan, wayna ogolaatay. Siciid ayaa u sii qaaday magaalo kale, iyada oo qoyskeeda ka tagtay qaab dhumasho ah oo aysan cidna ogeyn, si uga fogeeyo meelaha laga yaqaano. Wuxuuna geeyay dhakhtar. Ugu dambeynna halkaas ayaa laga soo tuuray ilmihii. Suleyqa hadda waxay la mid tahay hooyo ilmo dhashay, waxayna weyday gabarnimadeedii. Maalmo ka bacdi ayay ku soo noqotay xaafadoodii, iyada oo ka soo kabatay dhaawacii, laakiin cid ogi aysan jirin. Xaafadda waxay u sheegtay inay rabtay tahriib, balse ay dib kala xumaatay. Waxaana la isku dayay in la dejiyo oo la waaniyo. Siciid maalintii ayaa ugu dambeysay, waxa uuna u sheegay inuu calaf kala adeegay oo gabar ay qarabo yihiin lagu daray, balse uusan weligii ilaawi doonin Suleyqa. Hadda Suleyqa cidna ma oga, kaligeed ayay oynaysaa. Qalbigeeda wuxuu la gubanayaa dhibka ay martay, nolosha way ka quusatay. Waa gabar yar oo isma adkayn karto. Waxay tiri iyada oo marxalad ay ku jirto ka hadlaysa, dadka dhan inay wada og yihiin ayaan moodaa, cidna ima oga, cidna lama hadlo, cidna ma aamino. Nolosha iyo geerid ma kala jecli, ismalihi nolol ayaa ku dambaysa, wax ii haray ma jirto, wax walba way iga burbureen, nafteeda waan nacay ee ila taliya maxaan sameeyaa. Haddaba dhagaystow, maxaad kula talin lahayd walaasheena Suleyqa?